asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha meel walbaa joogtay waan islaamayaa waa walaalkiin shakuur iyo video cusub. videogan waa ka duwan yahay videowadii kale aan soo diyaarinaya. maanta waxaan rabaa in aan idinla wadaago xog aan soo arooriyey oo ku saabsan fahamka central bank inflation interest rate oo ayaantani jahada naga qabsatay, khaasatan central bankiga dhexe ee Mareykanka, iyo inflationka sicir bararka iyo interest rateka oo ah lacagta ribada la dul saaro lacagaha deenta laga qaato bangiyada. taasina waxay keentay dhibaato waxay u keentay marketka sida stock marketka iyo maxaa la dhahaa suuqa aan ku jirno inteena badan ee Soomaalida cryptocurrency. marka waxaan isla fiirinaynaa central bank inflation iyo interest rateka. central bank khaasatan waxaa isha mise xooga saaraynaa central bankiga ee Mareykanka. guud ahaan central bank waa bankiga dhexe, waa is an organizations that manage the currency of a country or group of countries and control the money supply. Normally, central bank meel walbo adduunka wadan walbo wuxuu leeyahay bangiga dhexe. marka bangiga dhexe wadamada horumartay bangiyada dhexe iyo dowladda iskuma xirna, waa organization ka madax bannaan ee dowladda. marka waa organization manage gareeyo maxaa la dhahaa lacagta, oona awood u leh maxaa la dhahaa in ay controlaan price stability-ga, priceka suuqa ama dukaan ha ahaado ama baqaar ha ahaado ama company ha ahaado. priceka meeshaasi inay stability u lahaado waxaa ka dambeeyo waa shuruucda ay dejiyaan bangiyada dhexe ee wadan walba uu leeyahay dhanka dhaqaalaha. hoos waxaa ku qoran the main objective of many central banks is price stability. marka shaqada ugu koowaad ay central bankiyada qabanayaan waa price stability. okay, haddii aan focuskeena waxaa saaran yahay federal reserve systemka ee Mareykanka oo loo soo gaabiya Fed. waa bangiga dhexe ee Mareykanka. taariikhdiisa haddaan gadaal u noqono waxaa la sameeyey December 23 1913. waxaana sabab u ahayd cabsi weyn oo dhacday 1907. cabsidaas iyo isku dhexyaac dhanka dhaqaalaha sanadkaas ka dhacay Mareykanka ayaa keentay in la sameeyo bangiga dhexe ee Mareykanka. markaasay u controlsho ay u awoodo systemka ee u sameyso ayna ka hortagto dhaqaala burburka ee wadanka. waxyaalihii ay la soo kulantay waxaa ku qoran inta hoose the Great Depression 1930, the Great Recession 2000. arrimahaas taasi waa bangiga dhexe Mareykanka waqtiga la sameeyey iyo shaqadu hayo. inta waxaa ku qoran what does a central bank do? as the organization that control and nation's monetary policy, central banks have the ability to both grow and slow the growth of the economy.
waxay awood u leeyihiin in dhaqaalaha waddanka inuu horumar aan caadi ahayn sameeyo ama in uu xawliga uu ku socdo ay yareeyaan. tusaale haddartaan Dubai haddaan tusaale usoo qaadano, nolosha aad bay qaali u tahay because growth aan caadi ahayn baa ka dhacay meeshaas. growthkaas dadka normalka ah ee xamaalatada ah kuma noolaan karaa meeshaas, ama hadday ku noolaanayaan waxay waa inay si nolol aad cariiri u ah inay ku noolaadaan. haddaad tagtid suuqyada Dubai, dadka normalka ee ka shaqeeya guryahay degan yihiin, waxaad arkaysaa 10 qof oo 2 guri isla degan, 2 qol degan, sariiro isdulsaar ah. taa waxaa keenaysa in meesha ka jiro sicir barar aan caadi ahayn. marka waddankaasna waa ka qaban waaya sicir bararkaas. marka dhibaato waxay ku imaanaysaa dadka normalka markay dhibaato sidaan camal, sicir barar sidaan camal, mise growth saas xawli u ah inuu dhaco oo aan isla soconin. marka growth dhacayo, haddii dadka iyo waddanka hadday isla socdaan waa wax dhib ma lahan, laakiin dadka meesha ku nool iyo waddanka hadday isla soconin waa dhibkeeda leedahay. taas waa tusaale yar. marka ka hortagga taas, waddamadan bangiyadooda dhexe waxay sameeyaan waxa la dhaho price stability. hadday arkaan economiga inuu xad dhaaf u socdo, xad dhaaf markuu u socdo oo growth aan caadi ahayn sameeyo, waxaa imaanaya inflation, sicir barar, wax walba qaali. taas markaas waxay sameynayaan, way ka hortagayaan, way yareynayaan growthkaas. se u yareynayaan bal aan isla aragno. hoos waxaa ku qoray, if inflation is increasing, the central bank can raise interest rate. kor u qaadis interest rate, lacagta dulsaarka ee ribada, which makes it more expensive for individuals to take out a loan from her bank. anigu haddaan raba inaan business sameeyo oo bangigayga xaafadda ku yaalo oo commercialka ah aan ka qaato lacag deyn ah, bangiga dhexe baa lacagta siinaya bangigan commercialka, ayakana meeshaas waxaa u yaala damaanad ay lacagtaas ku soo celinayaan. marka lacagtaas aniga aan ka qaadanaya bangigan oo xaafadeeda ku yaalo, wuxuu isiinayaa lacagtuu isiinaya, laakiin wuxuu igu siinayaa lacag dulsaarka oo aad u badan, taasoo keenayso in aniga 2 mar mise 3 mar ka fikiro inaan lacagtan qaato ama inaan iska dhaafo. taasna markay dhacdo oo aan iska dhaafo oo lacagtan aan suuqa stooga mise kriptada mise business kale aan ku furto, taasna markaas waxay yareynaysaa growthka, yareynaysaa. aniga ma soo gelin, faarax ma soo gelin, jaamac ma soo gelin, because waxaan ka cabsanaynaa interest rate-ka. kama hadlaya anaku asa Soomaali ahaan, laakiin waxaan ka hadlayaa cadaanka si u dhaqmaan, because anaka ma wagalnabo arrimahaas alxamdulilah. laakiin suuqii wuu afad garaynaya, effect buu ku sameynaya waxaan la sameynayo. fahamte? lacagtan deynta la qaadanayo suuqa effect buu ku sameynaya. okay, horaan soconayna ma rabno inaan ku badano. why does the central bank change the interest rate? mustalaxa dhaqaalaha mise mafhuumka dhaqaalaha, markii central bank uu cut ku sameeyo interest rate-ka, markuu jaro interest rate-ka, waxaa loo yaqaanaa
easing kelmadan labada la geliya waa easing monetary policy easing waxaan jeclaan lahaa inaan si fiican ugu dhawaaqayo marka easing waa fududeyn waa markii ay dhaqaalaha hoos u yaalo ee rabta dowladda in xaaladda ama bangi ama kambaniyo banaanka xataa ay imaadaan ama dadka naftigooda ay ku dhiiradaan inay maxaa la dhaha economy mise dhaqaalaha ay gacan ku yeeshaan siday dhaqaala usoo kaciyaan marka waxaa la sameynayaa waxa la dhaho easing taasi waa fududeyn marka waxaa la fududeynayaa inaad qaadatid lacag deena lacagta deynta aad qaadanaysid interest ratekeeda aad buu u yaryaa hadda waxaan itusayaa bal meeshaan isla aragno 2020 laga soo bilaabo interest rateka ka hor 2016 kor u kac interest rateka ilaa uu gaaray bartanka waxaan u maleynayaa 2019 2018 wuxuu marayay 2.5 buu marayay hoos buu usoo dhacay 2020 markaa imaanay oo aan galnay maxaa la dhahaa ishak lockdownkii COVID-19 interest ratekii hoos baa la keenay interest rateka hoos markii la keenay wuxuu ka hooseeyay eber 5 buu ka hooseeyay eber 5 buu ka hooseeyay markaas inta ilaa waqtigan hadda aan joogno 3 bil ka hor markay bilaabeen hadda shaqada waxaan u maleynayaa dhowr 3 bilood 4 bilood ka hor bay bilaabeen inay ku daraan inta marka saan la joogo dowladdu waxay ku fikiraysaa in waddanku dhaqaalihiisa inuu hoos u dhicin marka interest ratekii yareeyeen marka qof walba lacag deen qaadanaya ama company ha ku samaysto ama guri ha ku gato ama maxaa la dhahay isha cryptocurrency ha ku soo galo xaalad waaliya imaata qof walba markuu lacag qaatay oo lacagta suuqa keenay waxay keentay taasi wax la yiraahdo sicir barar inflationkii hadda daatadii ugu dambeysay inflation data waxay ahayd 8.6 normalina waxa waa inflation datadan markay tahay 2 mise 2 ka hooseeya mise 2 ka hooseeya waxa waaye markay ugu fiican tahay waa inflation datadaas markaasaa la sameeyaa cut easing ashaan ku qoran tahay easing umaleynaa easing okay when it increasing interest rate markay ku dareyso interest rateka it says be tightening monetary policy tightening waa cunaqabateen midaan easing waa fududeyn tightening-na waa cunaqabateen waa ku adkeyn iyo cunaqabateen markan waa lagugu adkeynaya inaad lacag deen qaadatid aan ku noqona daatadii hadda waa kana kore usoo kacday waxaa lagu jiraa tightening bilowgeeda lagu jiraa marka tightening wuu soconaya ilaa uu ka aado 2 mise ilaa uu ka aado 3 iyo 2 markuu aado markaa waxaa yaraanayo inflationkii sicir bararkii yaraanayo because lacag ma soo gelayso suuqii lacag ma soo gelayso lacag free ah suuqii ma soo gelayso ma fahantay lacag oo laga soo deensaday bangiyada ma soo gelayso suuqii
because waxaa socdo wax la yiraahdo tightening. Okay, hore aan socono. Central bank lowers interest rate when it is trying to stimulate the economy and increase interest rate when it is trying to contain inflation caused by economy that overheating or growing too fast. Economic or growth aan caadi ahayn sameynayo waa laga hortagaa. aniga waa ugu cusubtahay sheekadan, laakiin economiga oo high aada waa laga hortagaa, waa la soo yareynaya. marka waxaa la rabaa baashi inay stable noqoto, ma fahamtay? waxay waali inay noqoto oo aan waxaan qof aan VIP ahayn aan soo geli karin meesha. only VIPs. marka wadan waxaa jiro only VIPs buu noqonaya wadankaas, maogta wax walba qaali. marka waxaan aadaynaa lower interest rate stimulate an economy in few ways. business waxay deyn ka qaban karaan borrow money bangiyada, oo haddana waxa waa investment bay ku sameynayaan projectyadooda, ana waxay helayaan lacagta ay borgarayaan, lacag ka badan lacagta ay borgarayaan, borrowing rate. waxyaalaha kale waxaa jiro people investing their money. taasna way dhacday 2020 markii lockdownka la galay. people investing their money into the economic stock and other assets like a cryptocurrency. فهمتين أمولينا? because they can earn more in those assets than currently low interest rate. Okay, waxaan marinay if economic growth is too fast, waa sheekada hadaaye, inflation may become too high and unstable. tan waay tanaan dhahaya anigu igu cusub tahay, tanaa keenayso. marka economic growth aan caadi ahayn sameeyo, kor u kac aan caadi ahayn sameeyo, waxaa kor u kacay inflationkii, markaas wuxuu noqonayaa unstable. This make it difficult for householder and businesses to plan for future because prices are hard to predict with confidence. This can hinder spending and slow growth. arrintaas sida looga hortago, central banks maxay sameeyaan? waxay ku darayaan sida hadda aan sheegnay, sida looga hortago inflationka, interest ratekiyaa lagu darayaa. marka hadda waxaan sugnaa waa interest ratekii oo lagu dara. waxaan ka sugaynaa Federal Reserve groupkan odagaan iyo tiimkiisa waxaan ka sugaynaa maantay inay ku daraan 0.75. markaas waxay noqonaysaa taariikh cusub. waxaan u maleynayaa sida la sheegay 90-meeyadkii u dudbaysay in hal mar yani lacagtaas increasekaas lagu sameeyo interest rate oo hal mar lagu daro. laakiin way sii soconaysaa sidaan ii sheegay, oo ma istaagayso sidaan aniga filayo ilaa laga gaaro 3 laga gaaro.
tan waa daatadii ugu dambeysay oo interest rate markii lagu daray bili hadda la soo dhaafay eber dhibic 5 eber dhibic 25 hadda waxa eber dhibic 75 marka taas waxa waaye barnaamijka aan kasoo diyaariyay bankiga inflationka iyo interest rateka kulli aniga maanta arrimahan dhan way igu cusbanayeen waana baaritaankaana sameeyay wax badan baan aan ka fahmay inkastoo clubhouse-keena oo mar walba arrimaha laga hadlo laakiin markii mar walba aniga markaan deep dive sameeyo wixii dhex galoon baaro wax badan baan ka fahmaa idinkana waxaan rajeynayaa insha allah inaad wax un aad ka faa'iideen marka taas waxay ku soo dhamaatay barnaamijkaani soo diyaariyay insha allah waan cajbin doonaa haddii aad ku cusub tahay channelka nagu soo biir linkiyada hoos waxaad ka helaysaa qoraalada hoos waxaad ka helaysaa all information ku saabsan groupka telegramkiisa iyo clubhouse-ka iyo meel walba aan joogno si khaas haddii aad rabtid inaad ila soo xiriirtidna instagramka igala soo xiriir insha allah videoga waqti badan baan geliyay marka waxaan ka dalbaya ama ka codsanaya inaad maxaa la dhahaa videoga xaqiisa siist like shareka iyo maxaa la dhahaa commentiga dhammaan inaad isku dartid insha allah videoga xiga waxaan rajeynayaa knowledge aad u qurux badan waxaan umaleynaa cryptocurrency coin kaliya la gadanayo aan umaleynayna laakiin waxayna gelisay bangiyadayna gelisay iyo cilmi finance-ka inaan si fiican u dhex dabaalno marka wax badan baa isla baranayna insha allah soo dhawaada aan islaamaya insha allah السلام عليكم.